maalmahan dambe waxaa socotay xan badan oo dadka lagu jahawareerinayay oo aan dareemayo dad aan fahmin ama dad dan leh inay aad uga shaqaynayeen oo ugu muhiimsan tahay dad badan oo oranaya canshuurtii dekedda Boosaaso kor loo qaaday waxaan rabaa maanta inaan u sheego dadka reer Puntland dawladda Puntland wax canshuur kordhina oo ay sameeyso ma leh taa horta inay ogaadaan way canshuurta kordhinteedu process bay martaa miisaaniyadda dalka gasha ogolaansho baarlamaan ay martaa marka aan aragno inay dan tahay canshuurta aan qaadno weli kuma filna adeegyada bulshadeenu u baahan tahay laakiin waxaan isla socodsiinaa baahida iyo duruufta markaa jirta iyo kobaca dhaqaalaha ee ganacsatada waxaa kaloo intaa dheer dekedda magaalada Boosaaso waxaad ogtihiin shirkad baa maalgelisay muddo badan ka shaqaynaysay qof walba uu qirayaa isbeddelka ku dhacay dekeddeena waxaa kordhay jambiyadii ay ku soo xiran jireen maraakiibta waxaa la qoday kanaalkii maraakiibta waaweyn ay soo maraysay waxaa lagu wadaa dib casriyeyn iyo ballaarin joogto ah muddadaas hawshaas socotay waxaan shirkadda gacanta ku haysa mar walba ku codsan jirnay in ay marxaladaha aan adag ee aan ku jirno ay noogu dulqaataan intaas 7 sano aan joogay waxaan ka hortaagnayn in tareefka ahayd heshiiska lagula galay inaan la fulin duruufo jir awgeed annagoo u eexeynayna ganacsiga kobciisa annagoo eegayna ganacsatada inay culays badan saaran tahay muddooyinkaas faraha badan oo arrimahaas aan saas u lahayn waxaan eegaynay inay ganacsatadu arrimo badan oo gaar u ahaa inay ka soo doogaan dalkuna oo marxalad oo xambaari kara ay noqoto waxaan rabaa dadka inaan maanta u caddeeyo waxa la kordhiyey oo dadku sheegayaan horta canshuur ma aha waxa weeye khidmadaha laga qaado maraakiibta dalka badeecadaha keenta oo boqolkiiba 95 ama 96 ama 99 maraakiibtaasi ay leeyihiin dad ajnabi ah waxa Soomaalidu ay leedahay waa dhowr farqo tiris ah maraakiibtaas ganacsatada inay soo kireystaan oo ay lacagta ka qaata oo dalka badeecada keena dekedda u adeegaysa waxay u baahan tahay khidmad la mid ah khidmadaha dekedaha kale markay tagaan ay bixiyaan annagoo taa weliba xeerinayna maadaama dekeddeenu ay cirf ku taal weli aan rabno in ay badeecadeen noqdaan badeecado tartan fiican geli kara waxaan muddo ka codsanayna inaan kor loo qaadin intii ay ugu timid ay ku hayso waxaan maanta la garanay marka loo fiiriyo dekedaha Soomaaliya inteeda kale iyo regionkaba wax aan la xusi karin iyagan u noqon kara dhiirigelin ay ku sii ballaariyaan inta u dhiman oo aan dhawaan rajaynayno dekedda guryihii ku xeernaayo dhan inuu isbeddel ka dhaco wada hadal muddadan socday dadkii hantidaas lahaa aan ka codsanay in aan wada hadal ka galno si aan tacwiid ugu celinno dekedda loo ballaariyo waan uga mahad celinayaa guddiga arrintaa ka soo shaqeeyay waxaa hadda fooda nagu soo haya dekedda wajigeedii labaad in la bilaabo meelaha ku xeeran oo dhan wada hadalkaas oo dhammaaday markii arrimihiisa dhammaadaan lagu daro jambiyada la kordhiyo qalabka la kordhiyo deked casri ah oo la jaan qaada dekedaha kale noqdaan waxaan u baahannahay dadka aad wararka u dhex maraya inaan runta u sheegno waxa la kordhiyo canshuur maaha waxa wax lagu kordhiyana waa maraakiibta adeega keena oo iyagoo naftirkooda khidmad ka qaata badeecada ay wadaan dekedda u adeegaysa oo intaasu shaqo awooday in wax suuragal ah oo marxaladan ay qaadi karto annagoo ka warqabna duruufaha dhaqaale ee dalkeenna ganacsigeena uga xanuun badan cid walba maxaa yeelay dawladdu waxay ku dhisan tahay dhaqaalaha ka soo gala ganacsatada ganacsiga ilaalintiisana wuxuu ka mid yahay waajibaadka dastuuriga ee dawladda saaran inaan isku dheelitirno maalgelinada shisheeye maraakiibta ajnabiga ee noo shaqeynaya ganacsatadeena faa'iido doonka ah iyo bulshadeena oo ah cid u dambaysa oo kharash walba oo yimaado ku dhacayso anagu isku miisaameeno danaheeda ka ilaalinayna ayaan arrimaha u yeelinaa waxaa nasiib darro ah mararka qaarkood dad aan fahamsanayn in si xun wax loogu sheego waxaan qirayaa ganacsatada 90% dad wanaagsan oo dalka la shaqeeya oo fahamsan duruufaha soo mara mar walbana dawladda u dhow inay yihiin waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dekedda Boosaaso ma xirna xoolihii baa dhoofaya shidaalkii baa soo degaya doonyihii baa xiranaya ilaa hadda socda waxaa aad suuqa loo geliyay dekedda Boosaaso way xiran tahay warkaas waa been suuqu waa xiran yahay afar albaab oo xiran in la suuro macnaheedu maaha inay dalkii u kala xiran yahay
waxaan u sheegaynaa bulshada reer Puntland meel kasta ay joogto ganacsigooda inuu furan yahay dekadii inay shaqaynayso dad cabanaya way jiraan oo iyadana ma inkirayno waxaan rabnaa inaan u sheegno waxyaabaha ay ka cabanayaan waa waxyaabo hadda aysan gar badan ugu lahayn wilina diyaar loo leeyahay in laga qanciyo dalka dantiisa dadka dhan bay ka wada dhaxaysa ganacsiga iyo cid kastoo ganacsanaysa shirkadda gacanta ku haysata ganacsatada ka mid tahay maraakiibta keenaya ganacsatada ka mid tahay kuwa badeecadaha soo geliya waa ganacsatada dawladuna dhaxbay u tahay waxay mar walba dhex ugu tahay inay ilaaliso waxaan ogsoonahay marar badan ganacsatada duruufo aan dalka ka soo wajihin ee dibadaha ka soo wajaha ama qiimayaasoo kaca ama dekadaha kale ku kaca way aqbalaan badeecadana way ku kordhiyaan mana cawdaan marka waxa gudahooda dadka dantiisa ku jirto oo dekadooda lagu horumarinayo inay ka cabtaan oo runtii ay qaarkood falal aan fiicnayn u sameeyaan arrin iyagan u wanaagsan maaha dalkan u wanaagsan